Sinjibishu waa geedgaab kuwa caleenta leh waxaana la isticmaalaa xididkiisa iyadoo loo adeegsado cuntada lagu macaaneeyo ama lagu udgoonayo waxaana sidoo kale loo isticmaali jiray dawo ahaan taariikh hore geedkan ayaa markiisii hore lagu arkay asal ahaan koonfurta dalweynaha Shiinaha dabeedna wuxuu u gudbay dalka Hindiya waana halka la rumaysan yahay inuu asal ahaan ka soo galay qaaradda Afrika iyo Yurub oo ganacsi xooggan kala dhaxeeyay Hindiya waagaas sinjibisha waa la isticmaali karaa haddii ay qoyan tahay qalalan tahay haddii la ridqo haddii saliid laga dhigo iyo haddii la miiro intaba mararka qaarkoodna waxaa lagu daraa cuntooyinka la warshadeeyo iyo waxyaabaha la isku qurxiyo qaarkood balse waxay caan ku tahay cuntada oo lagu daraa sinjibisha waxa ku jirta maadada gingerol oo muhiim u ah caafimaadka sinjibisha ayaa dawo ka ah yalaalugada ama lalabada sida lagu xaqiijiyay cilmi-baaris la sameeyay oo ay ka qayb galeen 1278 haween uur leh waxaana la ogaaday in isticmaalkeedu uu hoos u dhigo yalaalugada ama lalabada xilliga uurka laguma sheegin cilmi-baarista in sinjibisha ay mataga ka dawo tahay qaadashada xaddi u dhaxeeya 1 ilaa 1 gram oo sinjibil ah waxay ka hortagtaa noocyada yalaalugada ama lalabada sida tawalaca qalliinka kadib iyo dawooyinka kiimikada ah isticmaalka sinjibisha ayaa hoos u dhigta murqa xanuunka qaadashada xaddi ah 2 gram maalin kasta ayaa maalinta xigta hoos u dhigta murqa xanuunka waana mid saameynteeda leh gaar ahaan waxay dawo u tahay murqa xanuunka la dareemo xilliga jimicsiga xanuunada lafaha iyo isgoysyadu waa xaalad caafimaad cilmi-baaris la qaaday ayaa hoosta ka xariiqay in qaadashada sinjibishu ay tahay dawo xanuun baabi'iye oo waxtar leh waxaana la mid tahay dawooyinka xanuun baabi'iye sida ibuprofen baaris wali cusub balse sinjibishu waxay leedahay astaamo awood badan oo ay kaga hortagi karto cudurka macaanka cilmi-baaris la qaaday sanadkii 2015 oo ay ka qayb galeen 40 qof oo qaba macaanka nuuciisa labaad qaadanayeen 2 gram maalin kasta oo sinjibisha ah ayaa la arkay iyadoo hoos u dhigaysa sonkorta dhiigga ku jirta sinjibishu waxay u muuqataa inay sare u qaado faaruqinta caloosha cuntada kadib oo dadka qaarkood kala kulmaan calool xanuun haddii cuntada la burburin waayo waxaana faa'iido u tahay dadka ka cawda dheefshiid xumada iyo xanuunada caloosha la xiriiriyo raashin la sameeyay ayaa lagu ogaaday qaadashada 1 gram oo sinjibil ah oo la ridqay cuntada ka hor inay muhiim u tahay caafimaadka caloosha iyo cunno burburinta sinjibishu waa mid ka mid ah dawo dhaqameedka xanuun baabi'iyaha gaar ahaan xilliga caadada haweenka siiba maalmaha ugu horeeya waxa jira waxyaabo cadeynaya in sinjibishu ay hoos u dhigto cholesterol oo sabab noqon karta xanuunada wadnaha tijaabo lagu sameeyay 45 maalmood oo xiriir ah 85 qof oo dhiigooda ay ku badan tahay cholesterol qaadanayna maalintii 3 gram oo sinjibil ah ayaa la arkay inay hoos u dhigtay sida lagu sheegay daraasado kala duwan oo la sameeyay sinjibishu waxay ka hortagtaa hawlgabka maskaxda iyo dhaawaca unugyada maskaxda ay sababaan oxidative stress waxaana sinjibishu ku jira maadooyinka antioxidants iyo bioactive sinjibishu waxay sare u qaadaa shaqada maskaxda sida xasuus sinjibisha waxa ku jirta maado la yiraahdo gingerol waxay ka hortag wax ku ool u tahay faafitaanka cudurka kansarka maadada gingerol oo laga helo sinjibisha waxay ka hortagtaa caabuqa infekshanka waxay awood badan tahay xilliga ay qoyan tahay isticmaalkeedu waxa xubaala inay ka hortagto korriinka bakteeriyada noocyadeeda kala duwan waxaana dawo u tahay xanuunada afka ku dhaca gaar ahaan ciridka